meeshan waxaa ku aasan dad kumayaal kun ah oo dhulkan ku wada aasan marka faatixada u maray ilaahay maartay inuu ka raadli noqdo ummadda halkan ku aasan ee lagu laayay oo isugu jirtay caruur yar yar iyo hooyooyinkoodii dad odayaal ah dad waxgarada aqoon-yahan dad ku eedaysnaa inay owanalf ay yihiin dadkaas oo dhan baa meeshan ku aasan shacbi aan waxba galabsanin ayaa waddankan ku aasan bal markaa si guud faatixada loogu maray ilaahay inuu ka raadli noqdo ummadaas waxaan ognahay meeshan jeelogaadeen markii la bixinayo waxay ahayd saan filayo wixii loo soo gaaray 2007 miyahay 6 miyahay meelahaas ciqaab wuxuu ahaa markii hore qabiil loo maleynayay halgankii owanalef inuu maartay meelaha ugu badan qabiilkaas ay xuduntiisu tahay hawlgalladiisii iyo dagaalada ugu badnaayeen deegaanka dadka joogay waxaa loogu talagalay shacbiga in lagu ciqaabo ciidan looma dhisin in lagu ciqaabo waxaa loogu talagalay jeelkan loo sameeyay wuxuu ahaa shacbigii in lagu ciqaabo dabcan waana lagu ciqaabay waxaan xusuusanahay xilli amar aad iyo aad u weyn la bixiyay oo ah shacbigaasi guud in loo laayo waxay ahayd taariikh ahaan waan xusuusanahay 2007 bishii maarso iyay ahayd waxaa dhacay dagaalkii la dhihi jiray Cuballe 24 buu dhacay mala zanaawi wuxuu isugu yeeray taliskiisii ciidamada iyo guddigiisii amniga iyuu isugu yeeray 7 beri bay shir ku jireen shirkoodu wuxuu qabsoomay oo bilowday 25kii 7 berina shirkoodu wuu socday go'aankii ka soo baxay wuxuu ahaa in si aan kala hadlayn loo laayo dadka waxaa gudoominayay mala zanaawi shirkaas isaga gudoominayay waxaa waajibka iyo hawlgalka fulinayay generaal la yiraahdo Samora yaa fulinayay iyo nin la dhishay Abarra oo markaa joogay ilaahay Hararge iyo nin kale oo hadda magaciisa aan xusnaa generaal saddexdo iyo macaamil afartuba tikray bay ahaayeen qorshaha ayaa distanka dagaalku wuxuu ka bilaabanayay Alaarsa xilliga ayada waan xusuusanahay go'aankooda markuu soo baxay baan anagu ogaanay go'aankan soo baxay iyo baaxadiisa iyo yoolkiisu wuxuu yahay yaan ogaanay in qorshahan dhan lagu fulinayo shacbiga yaan ogaanay go'aanku waxa dadka in la laayo la soo qabto hantidoodana la dhaco kufsi aan kala had lahayn in la sameeyo yaani wax bini aadam lagu ciqaabi lahayo haba yaraatee aan ku jirin go'aanka iyo istaraatiijiyada la qaatay ay qaateen saraakiisha tigrayga dhigicabka runtii ma jirin wax walba way qaateen wuu bilowday hawlgalkaas wuxuu bilowday saafilayo koobiyo kiimiya mise waa 1 April 2007 iyo hawlgalka xooggiisu iyo dhaqaaqay oo xasuuqa shacbigu bilowday waxaa la soo qabtay kumayaal kun baa la soo qabtay oo ragii wuu carray dumar u badan xilliga laga soo bilaabo iyo intii u dhaxaysa 2012kii jeelkan jeelogaadeen waxaa ku dhali jiray gabdho bishii celcelis 8 gabdhood 8 gabdhood 5 kamidi ma saddex kamidi way umur raaci jireen aad baan uga warqabnay umusha u dhiman jireen 8daas caruurtoodii wax ka badan laba marnaba ma badbaadi jirin waa intii u dhaxaysay xilliga ololaha dagaalka iyo operation-ka la bilaabay iyo 2012kii celcelis intaas ay umuri jirtay intii dambe way yaraatay maxaa yeelay dadkii baa waddanka ka baxa waxaa soo geli jiray oo bishii laga yaabo inuu ay marka dambe 3 inay ku soo ururtay gabdhaha ku umuri jiray halkan caruur kale ma ayna tagi jirin waxaan xusuusnahay oo la ii sheegay god halka ku yaala gabadh uur leh yaa lagu garaacay sidii loo garaacay waxay tiri gabadhii uur baan lahaa 9 bilood baan lahaa anigoo la garaacaya ilmahayga soo duulay bay tiri bulaacada ninkan inooga sheekeynahay baa ilmihii ku dhacay ma ogeyn bay tiri ilmahaas marka ilmaha aan dhalay ma ogeyn bay tiri maana fahmaynin bay tiri waxaan arkay bay tiri dhiigiga socdaan arkay bay tiri gabadhaas fiiri dhiigiga socdaan arkay bay tiri marka kadib yaa meesha aan oo mar dambe oo baraarugay yaa waxaan arkay meel bulaacada ilma yar oo ku jira way macna markay miirsatay wixii ka dhaw godkaas halka ku yaala way saraakiisha tigraygu waxay sameyn jireen kormeer joogto ah si ay u xaqiijiyaan qorshayaashii
ay amreen dadkan inay fuliyaan siday u amreen inay u fuliyeen iyo inaysan u fulin inay wax ka dhiman yihiin si ay u xaqiijiyaan iyo kormeeri jireen 3 sarkaal baa ku qornay aagan oo report ka diyaarin jiray waxaa la siin jiray war subaxeed Simora ya la siin jiray markuu Maladanawi intuusan baqtiina waxaa la siin jiray asagana war subaxeed intii dambe waxay siin jireen mar walba report war subaxeedka ra'iisul wasaarihii ka dambeeyay Maladanawi la oran jiray muxuu magaciis Hayla Maryam dhasalayn baa la jiray Soomaaliya wax kaasa la siin jiray fiiri يعني وحوها دنبي وضرير لقالي بوها دنبي وضرير للدياري بوها عقاب للدياري بوها وحاب دمتي مركز ساني دين شاك مركز ورا كوميال كم بعد دمتي كوميال كن أني ولالكي بقول شري الشيخ فران شيخ مصوحة وحوها سركال وصو دقالم عيدا كحوق دالك الصوماليات وحكونا في بدقالة دي انتضواتني تضواتي إساو قاشان الله يكوننا في بي waxaa laga soo qabtay wadanka gudihiisa laga soo qabtay halkan la keenay jirdil si loogu dilay ba halkaas meedkiis yaa la soo dhigay maalin baa wali la dilay markii lala maqnaa 4 saac halkan la soo dhigay meedkiis kuwana ku jiray oo ilma Sheekh Muuse kuway dhaleen ayaa ku jiray aniga walaalkay Sheekh Ibrahim oo naafa ah oo lugoona in halkan lagu soo xiray walaalkay 4 sano halkan markuu ku jiray waa lagu dilay wuu ku dhintay هذا ما يتكسي هالكن ما يقول ما يتكسي أنا كل أنا ما أعرف حاول ولا الكيس هالكن وقول أنتي قضيال كلا ولا لها يجوا وضع عريامين هالكن لقى ساري وعبد الله يسوقال ويلي عبد سهل يرادو تبكاس هالكن وكل عقابنا قضي هذا يجوا وضع عريانين وريالان واحد شرتي أو كلا أنا دولة دي مركز أيضا شرتي حوالها نجي يهنتي ذا نادي لا بقول اللحظة الشنها لا تي صبح نقدر يرصدين أو موت كيريرو كتيرين وانكسوقينه ayaga ma rasuul wax naga dareersaday dadka la laayay mood iyo nool wax ma loo reebin ma jirtay ba naga sida nadaba yaani ayagu waxaan isleeyahay waa dadka ugu roonaaba oo hadii la dhilaa dhowr qof baa qoyska ka dhimatay waxa la helayaa qoysas dhan family dhan oo baabay baa la helayaa sida markii dadka laga soo qaban jiray meesha la yiraahdo malqaqa iyo galaalsha iyo dudumacaadka iyo dadka laga soo ururin jiray sibi iyo dadkii laga soo qaban jiray dhagax buuriga aageeda iyo awaaray dadka yaani ummad waxa jirtay jilbiya dhan oo saaxada baneey baa jiro waxa ka noolay waxa kale jirtay hadaan gabdhihii kale dhacdooyinka gaaray iyar ka taabto ma wada gaarsiin karo oo de qalbigu ma soo wada koobi kare waxa jirtay Quraash Maxamed Xaaji gabadh la yiraahdo oo laba ilmood oo mataanaha dhashay labada ilmood mataanaha markay dhashay waxa la gabadhan musheexalay nin waxa qabi jiray baa la hubaysanaa والله يحل منهم ويسرق ما يبيتر والله صار صارت تدبها بملانتي متاري للشيء برنامج على دقيقة بالله قراعي وسق يبلعد يقرن يوحب على الغشبي حتى أمريات بيجلو الله دقي يجود على الغشبي ودوش على الغشبي كمان دي ويبدلن تيسول على الغشبي حاجة مركب إذا بدلن على الغش صاري تدبها بملانتي أيدي يلا بدأ يدور بو إسراع نورت أو يدنتين قريش محمد حاجب على ديت شري كمان ناس هي الحبور بيناهي waxay dhacdooyinka aan meesha ku soo marnay wax harta hada qalbigaygu soo koobi karo ma aha yani runtii waxa dhacay ma aha wax la iloobi doono waa waxaan ka daba tagi doona taariikhda waxa furan gal dacwadeed baa furan runtii maxkamadda dagaalka caalamiga waan ka furnay hadana waan sii wadi doonaa federaalka waan ka furnay waan wadi doonaa gal dacwadeedkaas uu shaqeynaya cid kasta oo caqabta ku yeelatana waxaan rajaynaynaa inay iman doonto sharciga hortiisa kuwii Soomaalida ah ee lagu fulinayay intii qorshaha loo dhiibay iyagu badsaday si la filayay inay wax u fuliyaan boqol jibaar bay uga badiyeen iyaguna way joogan qaarna waa runtii waa baxsaday waxa uu gacan galay waa inay ilay waxa hadda la yiraahdaa hal iscafiyo la yiraahdaa saxaafadda hal iscafiyo la soo mariya okay in la iscafiyo ma xumo laakiin aan fasiro hal iscafiyo macnaheedu waxaan ognahay dadka wax dilayay ee Soomaalida ah ee Tigraygu adeegsanayeen waxay ahaayeen dad Soomaali ah oo la yaqaan isaga oo yahay kanu inay hebel wuxuu fulinayay dilka inta oo qof 20 qof buu dilayay asoo la garanayo inuu hebel yahay oo hal qoys halka qoys faamiligoodii waxay yaqaanaan dadkoodii inuu xasuuqay inay hebel marka waxa noo muuqanaysa hadda dadkii inay u muuqato fursad inay hebel ay heerkoodii si dhaqanka Soomaalida ahayd ay dib ugu duulaan oo ka aarsadaan
macnaha ugu horeeyaan uga jeedno hal iscafiyo waxa weeye shacbiga iyaga dadkii laayay ee dambiilayaasha gacan ku dhiglayaasha dambigii qof kaliya galay inuu soo noqonin qof beel inaan loo doonanin heer hebel inaan loo doonanin heer hebel inaan loo raacanin heer hebel inaan loo aara doonanin inaan la kala aarsanin macnaha ugu weyn hal iscafiyo markaan leen horta ka weey ma aha gacan ku dhiglaha dilay dad gacan ku dhiglaha laba shardi buu leeyahay cafiskiisu marka ugu horeysa qofka horta doona in la cafiyo waa inay asaga ka timaado yiraahdo hal la cafiyo dambi baan galay walaalayaal hal la cafiyo waa inuu yiraahdo marka ayay u furan tahay qofkii dhibanaha ahaa agoonkii rajaygii iyo waalidkii dadkoodii leeyahay gablanka ahaa inay cafiyaan ama ay diya qaataan sharciyan waa sida horta qofku waa inay asaga ka timaado qorshahan waa qofku horta uu dambigu galay marka ugu horeysa horta waa inuu ka soo noqdo ilaahay waa inuu toobad keeno go'aansadana dambigii inuu ka soo noqdo qoomeeyana wixii dhacay ummadiina isu dhiibo waa nooca way yaa cafii kara gacan ku dhiglahan aniga dilay ilmahaygii aniga dilay walaalkay aniga dilay xaaskaygii yaani markaan dhaho aniga kan baa dilay kana aniga aabahay dilay markaan dhaho yaani shariicada islaamka cafis kasto oo ka hor imanaya shariicada islaamka qof cafii kara ma jiro dawlad baan cafii karin urur baan cafii karin cid kale aan cafii karin يعني قفك أسأل رجع رباي إنه عافس البضو قفك دبك اللوجي سنة عافسكي وإنه مركز وحون دورته أما عافس بحيه أما الديقاته أما قصاص في شده يعني شرع الإسلام قاسده أغلى ونوع نوعه وحلنا مركز حوي وردك الدم بيجا قلي والله وذا يقانا طبك الله يسألنا ويدي يقانا إلهي أطوبت كان دتك نوصل النقط لكن يسوق ولي ماذا حتاجيه يسوق ولي دارنا isagoo wali doonaya inuu dadkii baado war waxaas ma jiraan hadii la mooday in la kala cabsanayo hadii la mooday in caga jugleyn madaxa loo qorsanayo war waxa wax dhici kara ma dawladdu waxay qaadatay inaynan iyadu ayna hadda si guud inay u fidiso arrin masaalixda bulshada oo dadka aan colaad iyo cuqdad ka dhaxdalan jabhadda oo lafna waxay qaadatay inay bulshadu kala nabad gasho laakiin dambiga shariicada islaamka ku aadani waxa weeye midka qofkii dhibaatadu gaadhay iyo ehelkii dhibaatadu gaadhay iyo cidii wax dhaxmar waa inuu dhinaca u jaysmo way dawladdu ma cafiyi karto cafis ka hor imaanaya shariicada islaamka jabhaddu ma cafiyi karto cafis ka hor imaanaya shariicada islaamka gabaadna kama dhigan karo meelna ugama banaana oo walaalaf iyo maamul iyo dawlad meelna ugama banaan abs wax dhici kara haba yaraatee ma يعني waxa way dadka ayaga ka timaado laakiin qofkii dirir haya wali qofkii dhaaran haya wali qofkii wali is abaabul haya hal cafiyo illa yiraahdo taas wax aqliga bini aadamkan oo gal maaha sharciga qaanuun oo gal ma jiro waxaan leenahay marka ayaga u naseexaynayna in ay dib ugu soo noqdaan dadkoodii cafis inay dalbadaan qof walba maalmo kooban kadib ilaahay uu dil uu dhimani dadkoodii inay dib ugu soo noqdaan dhalinyaro la majara habaabiyay baa dadka lagu leeynayay iyaga uma qorshaysnayn inay dadkooda dilaan waa la qaribay waa la majara habaabiyay sharaftii iyo qiyamkii dadnimadii baa laga dilay dadkooda dib ha ugu soo laabteen cafis ha weydiiyeen waxba markaas runtii markay taas u dhacdo waa kaliya intaan doonayno maahan markaa inaan kala aargoosanayno maaha markaa inaan qofkii lahayn in dambi aan lahayn maalin baa dambi gasho waa lagu ciqaabaya macnaheedu maaha waxyaabahaas oo dhan waa fursado furan waa in laga faa'iideysto shacbiga iyagana waxaan u sheegaynaa dambiga qofka galay baa laga xisaabtami karaa laakiin qabiil laga xisaabtami karo shacbigii isku daya iyo cidii isku dayda in ay dambigi qof mujrima oo gacan ku dhiiglo ilaahay iyo diinta ka baxay uu dambigu galay inay qabiil u doonato asagoo masaakiinaha oo lala dilayay oo dadkiisii baaba'ay inay u doonato oo aara u doonato qofkii isku daya kama cid ka aqbalaysa ma jirto